السلام عليكم وين السلام ورت انترتينمنت فاميلي سida ogtiiba magacayga waa qadar hindi war badan yaad ku daalna asxaabta fiidiyogan soo daawo farxadan aan la qaadana walaasheena Justin Bieber fanaanada Soomaaliyeed nima xabi inaad shambalay u balan qaadato taas sax miya ها taasi waa sax dhabtii tiktok aan fiirsanayay saas taa masqushan ku jira ana banaanka daa joogna waa daawada tiktok masqusha daa ku jira waa daawada isku mid ay tahay adduunyada moogtahay nasiibka haduu kusoo doonto laga macli karo 5 milyan xataa marka aniga ma filayn gabar Soomaali marka inay fankeeda intuu halkaas gaaro aan u deeqi doono fanaaniin Mareykan oo maleynaa inay halkaas gaari doonaan dhib mala laakiin waxaan leeyahay waxaan oran karaa amazing aan dhihi karaa mid kale Mareykan ka soo degaan dhihi karaa ana ku joogo ana ku soo dhaweynaa airportkan ku soo dhaweynaa farxadaan ku muujinayna afniga fanaaniin badan ka soo qayb galayno niyada noo fur hambaliyo warle ma wadeena muuqaalka waa soo daawateen sax nimca habi walaasheena ma sha Allah oo kala kacday waxa leenahay hambaliya leenahay 5 milyan oo Justin Bieber u qaado waxa leenahay 2 milyan iyo bar akoonka ku shubo laakiin 2 milyan wadankan ugu dayactir wadankan ugu qorqorxi sababtoo ah dad Soomaali way waxa muuqaalkaaga iyo heestaada adduunka dhan ka gaday Soomaali hadday ku dhahaan waa ku camireena wallahi hawadaas ay ku gelinayaan hadda heestan oo TikTok dhan qabsatay adduunka dhan qabsatay macabi wiilal oo diaspora ee Ingiriiska America ku nool waxay iska soo duubeen challenge yar saasi hawada ku gashay mid kale nimca habi gabar aad u nasiib badan waay 60 sano xilli laga joogo fanaan walba oo Soomaali oo heesay ilaa shiran boy ku geey hal heeso adduunyada dhan oo qabsata malahan ilaa nimca habi kaliya moogiye waxa leenahay nimca habi gabar aad u nasiib badan waay laakiin nimca habi waxa ka hoos baxday in ay Soomaalidii oo hawadaas geeyeen oo challenge wax walba cadaanka tuseen inay u mahad celin weydo oo cadaankii oo heesaha challenge ka soo sameeyeen Cardi B iyo inay thank you ay soo dhaad taasna waxa waay formaanay baxda leenahay gabadha walaasheena xitaa shirkado waaweyn ah heshiis ala saxiixdeen waxa kamid ah shirkadda Spotify iTunes heesaheeda dhan hadda wixii ka dambeeyo lacag lagu iibsanaa war wiligeeda inta noosha lacagtaas u soconay hadday dhimato xataa familigeeda iyo qaraabadeeda lacagta aan qaadanayaan waxa waay tubo u furanta waay oo wiligeeda aad joogsanaynin tan ilowin dadka caanka oo reactionada ka soo bixiyeen iyo challenge-ga iska soo fureen waxa kamid ah Cardi B oo la yaqaan fanaanad weyn Mareykanka laga jecel yahay billions aad daawatay heeseeda fanaanad taajirada waay iyadoo xataa umul oo cunugi markaas ay soo dhashay oo caloosheeda waliba aysan simin challenge iska soo furtay waxay dhahday challenge accepted challenge-gan waa aqbalay cimaamadan ma heesa kaliya dhahday heestan Soomaalida hawada gashay waxa kale oo kamid ah Jason Derulo waa nin caan oo fanaan oo haddana TikTok waxa waay malaayiin ka heesta waay asigana challenge-ga oo soo accept gareey heestan waxa waay adduunka dhan ay ka gadmatay masraxiyada meel walba laga shiday walba waxa iga daran carabta xataa way gaartay heestan carabti dhamaa iyagoo qamiisyadooda wataan heestan horta sababta adduunka dhan ugu gadmatay ma fahmi kartiin horta oo heesihii hore Soomaalida ay u gadmi waayeen heestan waxa ku jirta 4 luqadood Soomaali Ingiriis Swahili iyo Carabi luqadaha adduunka oo ugu waaweyn ugu dadka badan heestan waxay ka dhigtay hees markaas heesta adduunka dhan ugu gadmatay wadamada isku haystaan waxay ahaayeen Ingiriiska iyo Mareykanka waxay rabeen inay heeseeda dib u cusboonaysiiyaan muuqaal fiican ka duubaan markaana ay copyright weyn ay u sameeyaan laakiin haddeertan wadamo badan oo ku soo darsameenba wadamo oo Carab oo bataqaanay wadamada Qatar iyo Dubai wadamada lacagta haystaan oo ku soo darsameen iyaga waxay rabaan inay qaadaan wadanka geeyaan inay sharci u sameeyaan
marka iyada ilaa ay hadda go-aan sax ee qaadatay iyo wadankii aadi lahayd ilaa ay hadda ma lahan laakiin sidaa qiyaaseena wadanka ugu fiican inay aado waa Mareykanka sababtoo ah Mareykanka waxaa joogaan fanaaniin aad u badan mataqaanaa challenge-geeda meesha dhan oo ka bilowdo waaye shirkadaha adduunka oo heesaha gadaan iyo waxaas oo dhan Mareykanka waaye dadka cadaanka ugu badan oo masraxiyada iyo heesyada meel walba laga daarana Mareykanka waaye waxa kula tali lahayn iyadana inay Mareykanka go-aankaas ay qaadato Mareykanka iska aado ana ka tagin dhibaatooyin badan anaga aan ku hayna ay jirto gabadha maalin hore waxaa arkayay muuqaal ee dhahayso TikTok-gan aniga iskama lihi been abuur waaye. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صحابتي ذا ملك استجوبتوا والسلامتين مركو كوبات مركا لبعض وحان أركاي تيك توك أو إكو قرنتين مع حبي ور تيك توك أنا ملهي أنا كان لي مع حبي عبد الله كيكو قرنتان لي هاي هلوجو صياعو هالكان أسكالو سعنينا مدة كلا دتك بنت كداية دت كان سمي سنة تيك توك أنا مع حبي بريتول ولا سجد بيمان دونا بنتنا ولا في عين هاي بين هالوجي لا هاي adduunkeena ugu orod gaaban tahay marka iska daaya beenta klibada aad ka soo qaadanaysaan YouTube-kayga soo gashanaysaan TikTok-gana waa laga fiican yahay hawayaan beenta ma wanaagsana asxaabtida halkan aan ka wada soconaynaa waxaan leeyahay one love nimca happy fiiri marka asxaabay gabadha walaasheenay saan ma qabataa waxaa laga sameystay 99 ciwaana laga sameystay oo feege dadka caalamka oo fanaaniin badan oo waxaa jiraan oo rabaan inay la soo xiriiraan laakiin meel ay kala soo xiriiraan ay leeyihiin markii TikTok-geeda la qoro Nimca Happy lagu qoro ama Instagram meel walba lagu qoro waxa soo baxaysa kumanaan Nimca Happy soo baxay mid saxda waa kan ayaa yaqaan maalin hore tan waxay leeyihiin kan verified-ka ani maahan meel ay kala xiriiraan gaaladan waxay jecel yihiin nidaam jecel yihiin waxay rabaan wax walba inay mataqaana qof hal qof ay wax xiriiraan anigii oo Soomaaliga ah oo ku rarsanaa gaalada cadaanka intee joogaan waxaa rabna xataa xog fiican in aan kaga soo gudbino iyo wareys fiican in aan ka qaadno ala yeelano waxaa baaquli boy Ethiopia la joogo jireen saaxiibo ah dirsi ah asiga xataa meel oo kala xiriiro la yaabo meel walba kala heshay tii saxda miya tii runta miya mabla kala yaqaan billahi hadda happy fanaanada kaliya ah wadana waaye fanaanad aad u nasiib badan waaye Nimca Happy ani walaal ahaan tala ahaan waxa ku dhiilahay horta hore gaaladan oo heesaha soo qaadanayaan oo ku soo dheelayaan thank you da badan ina iska dhaaftid horta hore sababtoo ah heestaadii iyaga way ka gadmatay maahan iyaga inay ku caawinooyin maaha heestaada iyaga hadda heestooda soo qaadilay thank you ku dhiilayaan macnaha mataqaanay heestaada way ka gadmatay heestaada hees weyn waaye markaan adaa lagu baahan yahay dadka Soomaalida thank you dhay caadi waaye dad walaalaha Soomaaliyeed waaye mid kale waxa ku sheegaa marka halkaas aad tigrid dhaqankaagi Soomaalinimadaadi calankaagi xooji islaamnimadaadana ha ka tagin gaaladan waxay rabaan dadka inay duufsadaan iyo waxyaabo kale inay geliyaan waxa ku dhihi lahaa mar walba iska xijaabnaaw waxa ka gadaa caalamka waxa ka gadaa dhaqanka aan leenahay iyo Soomaalinimada xataa dhaantaadoo dheelay xataa u duub say u arkaan macnaha Soomaaliga mataqaanay dhanka wanaagsan ee Soomaaliga mid kale waxaan maqlaayay in oo heestaa dadka hore oo lagu duubi rabo Mareykanka iyo meelaha ani ahaan waxa kula tali lahay dad badan oo muuqaal si fiican u duub Soomaaliya way joogaan Soomaaliya meelaha ugu quruxda badan ina muuqaalka ku duubtid aad dhahdid muuqaalkan hawada galiya si ay u arkaan Soomaaliya gaalado dhan hadda Soomaaliya gaalada waxay u aaminsan yihiin dhanka xun marka gulka ay gashid burburka iyo dagaalada iyo waxyaabahaas gaalada u soo baxayaan waa dad waxay naga faafiyaan waay aniga ina bedelna la rabaa marka oo waylaha dalxiiska quruxda iyo waxyaabahaas oo dhan ina tusno si oo wadankeena oo kor u noqdo aadan u nasiib badan xaqiiqatan heeso badan oo Afrikaan dad badan oo Afrikaan oo heestooda international noqonin ay jiro waxa uu rajeenaa heestan heesta disbaasiyo tacaamul inay noqoto 7 bilyan ka badan inay adduunka ee daawata rajeenaa heestan muusigadeeda gaalada la yaaban yihiin qaabkay ugu dheelayaan muusigadeeda ay la yaaban yihiin insha Allah waxa rajeenaynaa hadaa jaan soo helno inaan wareysi intaan in ka badan iyo wadanka ay go'aan ku qaadatay inay aado iyo lacagteeda meesha oo maraayo wax walba inay la soo socodsiino hadeertaan baaquli boy raadinayo waxa waay Ethiopia diris ku ahaayeen waxay si qaanaan Nimca Happy habaryaashooda iyo diyaashooda si qaanaan iyo wiilasha la dhashay marka kuwaas oo hadii ka daawo la xiriira Facebook iyo meelaha kala xiriira iyaga waxa la rabaa in isku xiraan إن شاء الله ماشي جوكتنا وتجينا أنت سبحين كور هدي عبود وقت جوكتي هدي حمر جوكتبو وتجينا إن شاء الله وحرمنا هنا ورئيس وحق صحن هنا كسوق خدنا ربنا إن شاء الله
idinkana waxaad leenahay daawasho wacan muuqaalkan haddaa ka heshay subscribe saar like comment share inta lagu sheegayo dhanka facebookana ha iloobin facebook waa inoo muhiim mar walba idin sheegnaa asxaabta dhiirigeliya facebook 10 kun wax yariisa ka dhiman hadda 4 kun oo marooya 6 kun bisa ka dhiman 6 kun wax ay taama lahan hal mar haddii aad tigrid follow soo dhahdid bis waaye intaasaa naga badan waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka aad daawatay waxaan leenahay bye bye